anigoo ah Liibaan Axmed Cashuur kuna hadlaya afka familiga iyo qoyska reerka Cumar Carte Qaalib waxaan in badan maanta la isla dhex wareegayay magaalada warar sheegaya in Maxamed Cumar Carte lagu xidhay airportka Hargeysa hadalkaas waxa kama jiraan wax aliyaalo wax xariga oo jira ma jiro issue la isku haystayo baasaboorkan diblomaasiga ah ee Soomaaliya oo maxay ahaydee awalba uu ku iman jiray siyaasiyiin badan oo reer Soomaaliland oo sitan ay jiraan taasun baa keentay technicality issue oo ka wada hadalay oo isla afgartay in marka Allahumma salli ala Muhammad in baasaboorkii Soomaaliland uu dib ugu soo galo go'aankiisii hore waa nin reer Soomaaliland una dhashay dalka waa dalkiisii go'aankii maxay ahayd ku soo noqoshadii Soomaaliland oo ku yimina wax aliyaalo wax iska bedelay ma jiraan xagga xukuumadana wax aliyaalo wax iska bedelay ma jiraan oo go'aankeedii waa xaggeedii dad la meereysanayay magaalado maxay ahayd muuqaal iyo wax duubayna way jireen oo lahaa Maxamed iyo ka hadlayay iyo geeridii marxuumkii abtiyay ilaahay naxariistay Cumar Carte Qaalib waa wax la yaab leh laakiin wax aliyaalo wax hadalka iyo dadka buuqa sameeyay ka jira ma jiraan technicality gaasun baa la isla fahmay maxay ahayd go'aan ahaana family ahaana waxaan markaa isla qaadanay in uu markaa Djibouti uu joogaa biidnillaahi tacaala baritan uu nahayaa way imanaya baasaboorkana muu haysan oo baasaboorka uu haystay uu ku dhoof jiro fiisooyinkiisina ku yaaleen wuxuu ahaa ka diblomaasiga haddii uu baasaboorka la haysan uu la soo bixi lahaa laakiin kaasoo kaliya oo fiisooyinkiisii ugu yaaleen Turkigana imka ka yimi ayuu ku yimi horena ugu iman jiray dalka badanaa waxa laga reebaa airportka tii marka waxba iska bedelay oo qolooyinkii immigration ku yiraahdeen baasaboorkan issue ka keeneen iyo hadal wax xarigiina ma jiro wax dhibaato kale waxaan sheekooyinka la meereysanay magaalada waxba kama jiraan marka inuu ka yimid magaalada Muqdisho maxaa ka jira warka sheegay waxba kama jiraan Istanbul buu ka yimi oo Anqara joogay isagii xaaskiisii waanay yimaadeen xaaskiisii family-gii uu joogaa baasaboorka diblomaasiga ah ee horena ugu soo gali jiray airportka laga reebi jiray ayuunbu ishigu ka yimi wax Muqdisho uu ka yimi shiruu ka qayb galay sheekooyinkaas waxba kama jiraan laakiin imika markii waxa la sheegay uu airportka ka soo degay in saraakiisha immigration ay la wareegeen oo lagu xidhay saldhigga booliiska ku yaala airport warkan waxa la leeyahay ma jiro wax aliyaalo wax xariga oo ka jira hadalka la sheegaya waxba kama jiraan waxa weeyaan maxay ahayd mas'uuliyiinta immigration-ka airportka shuruucda dalka iyadoo la ixtiraamayo go'aanada ay iyagu leeyihiin maadaama ay immigration-kii u qaabilsan yihiin dalka ayaa lagu ixtiraamnay waanu qaadanay in maxay ahayd issue ka keeneen baasaboorka Soomaaliland caalamkaba haddii baasaboorada maxay ahayd waanay ogolaan dalku galkii ka degaysa airportkiisa entry kala la sameeyaa marka taana waan isla qaadanay in baasaboorkii Soomaaliland uu sameesto maadaama aanu baasaboor kale lahayn oo ka ahayn mooyaane تينا مركا بإذن الله تعالى برتنون لها إن شاء الله. مركا بري مودا وصل. بإذن الله تعالى. إن شاء الله.